waxa uu ku caan baxay aftahanimo iyo khudbadihiisii taariikhda galay. Waxa uu xifdiyey Qur'aanka Kariimka ah isagoo aad u da'yar. Markii uu nin weyn oo mas'uul ah noqdayna, afartii cishaba hal mar buu Qur'aanka dhammayn jiray. Waxa uu amar ku bixiyey xarakaynta Qur'aanka iyo in calaamadaha icraabta loo sameeyo. Waxa uu ka talin jiray imaaraddii ugu ballaadhnayd ee dowladdii Umayyadeed, taas oo u qaabilsanayd furashada dhulalka shisheeye. Waxayna ciidamadiisu furteen in badan oo ka mid ah dhulka Hindiya iyo dhulkii kale la odhan jiray Sind amba Bakistan imika. Kadib markii uu ka takhalusay kacdoonnadii dowladda gudaheeda ka aasaasnaa oo uu gebi ahaantoodba soo gabagabeeyey, waxa uu sameeyey lacag u khaas ah dowladdii Umayyadeed oo lagaga maarmo lacagaha qalaad ee wax lagu kala iibsado. Waxa uu bilaabay oo uu sameeyey magaalada Waasit ee ku taalla dhulka Ciraaq, taas oo lagu qiyaaso lacagtii ku baxday dhisitaankeeda iyo qalabaynteeda $1 bilyan oo lacagta maanta ah. Laakiin waxaas oo dhan waxa garab socday in uu dilay in ka badan 120,000 oo qof oo dad muslimiin ah u badan.